السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سكريا عيسى ومقع دير حرباوي فيديوغي عن مانتا فيديوغي كوري عن كسوبان جدول كيني كوغو جيرنا هدو إن شاء الله مانتا وحالا وهذا سنين سين كنيسو أيام فيديو عن وطلقنا إن مراجعة السوق عن كفيرنا إن شاء الله لعلها أبومه مثلا أما كوغو معقوصا la trade gareeyo iyo kuwa fursadaha ka banaan ayaan rabnaa inaan insha allahu tacaala haddii aan ku bilaabo dahab ama gold dahabka time frameda dhaadheer haddii aan fiirno up ayuu ku jiraa still up ayuu ku jiraa kor ayuu u socdaa balse waxaa muhiim ah inaan technical analysiska aan isla fiirin maadaama dollar labadii week hadda lasoo dhaafay ilaa weekii hadda u dambeeyey wuxuu dollar oo week yahay uu soo dhacayo soo dahabka haddii aan fiirino laga soo bilaabo 1322 ilaa iyo 1266 ilaa 1266 wuxuu ku jiray down trade soo afarta saac haddii aad fiiriso hadduu alle idmo afarta saac look waa down trade ku jira still waa bearish oo hoos ayuu u socdaa okay markii koowaad waa kana resistance uu ka soo bilaabay up ayuu ku jiray uu soo dhacay 1 kan ayaan ka bilaabeynaa okay maadaama uu soo dhacay 1 here markii labaad waa kana okay 2 here markii labaad muu soo gaar laakiin waa 2 here markii saddexaad waa kana okay so marka waxaan dhigi karnaa kuwan waa fake breakout okay still ma ada clear ma ahan لكن waxaa macquul ah maadaama meeshaan aan fiirinayno oo aan dhihi karno ilaa meeshaan look 1 minute here ilaa meeshaan aan dhihi karno triple top okay 1 2 oo February 3 so saddexdooda waa qayb ugu sareysa meeshaan hadda marka uu is cadeynaya marka inuu qiimaha uu soo dhici doono dahab hadduu alidmo insha allah okay sidee baan uga faa'iideysanaa maadaama oo area risk uu ku jiro okay mid baa samayn karta so inta calaamadan haddii aan fiirino waa uptrend okay oo 1 2 3 saddex jeer ayuu support ka dhigto cuskaday meesha saddex jeer ayuu cuskaday qiimihii kor ayaa loo celcelinaa laakiin waxay u badan tahay haddii meeshaan uu cuskado hal mar uu ka baxo meesha dahab ilaa waxaad ka soo fiirinaysaa 1300 ilaa 1310 1310 ilaa 1300 ayaa dahab ka fiirinaysaa laakiin waxay u badan tahay in this week uu sameeyo qiimahan inuu hoos u soo aado oo haddii uu soo jibiyo areadan 1283 hadduu soo jibiyo insha allah waxay u badan tahay isagana boqolkiiba 90 inuu hoos aado reasonka uu hoos u aadi karo waxaa ka mid ah dahab USD JPY USD JPY gap ayaa ku jiro oo lacagii JPY pairs oo dhan gap ayay ku fureen lacagaha ka soo horjeeda sida weekii hore welina muusan buuxinin waxaa suurtagal ah inuu weekend buuxiyo suurtagal weeyaan sidaas darteed marka USD JPY area support ayuu joogaa oo haddii aan fiirino dailiga oo kale waad ka arki doontaa hadduu alidmo support 1 here 2 here 1 here 2 here okay that's why aan dhihi karnaa that's why aan u dhahaynaa USD JPY kor ayuu aadi doonaa hadduu alidmo insha allahu tacaala okay USD JPY markii aan fiirino afarta saac oo kale candlekan wuxuu kaga baxay meesha candle aad iyo aad u qubad weyn okay down trade ayuu ku jiray sidaas darteed hadda qiimaha wuxuu sameeyey waa u jibiyey clear wuxuu u yahay marka hadda inuu up aado okay so look down trade ayuu ku jiray hadda clear wuxuu u yahay inuu qiimaha kor aado groupkana waan post gareynay iyadaan inaan ka galnay alxamdulillah wuu ixtiraamaya ilaa waxaan rajeynaynaa next week ama weekend bilaabanayo insha allah inuu ilaahay u sameeyo okay muxuu samayn karaa USD JPY sidee baa uga faa'iideysanaysaa USD JPY markuu hoos soo aado ilaa meelahan 10970 something meelahaas ama meel u dhow meelahan oo kale markuu cuskado maadaama uu jibiyay hadda meeshan waa laga soo celin doonaa then ayuu kor aadi doonaa okay kadib ayuu caddeyn doonaa inuu si clear oo kor u aado USD JPY
USD JPY is going up إن شاء الله كر أيو آدي دونا ذهبنا وحرجين دونا عبدي أسوي جبيو كله بقول سديتن يصدح إلا كله بقول سديتن إلا بو 1 hour أوكله إنه آدي دونا قيمته أوكي وكنا وهذه أركتو سبورتية وعسكري مر صدحات مر أفراد أوكي هدي أسوي جبيه مركوه ديار وياهي قيمة إنه السوق إلى ملها 77 عسكري كديبنا وهوس أسوي جبيه إن شاء الله تعالى بس وأنا أكيد دونا نيوسيدا iyo fundamentalada waxay ka bedelaan indhaha ayaan ku haynaa dahabka sidoo kale waxaan indhaha ku haynaa pound JPY oo aan ku jirno gurubyadeenna alxamdulillah pound JPY 4 saacadood aad aragto down trade ayuu ku jiraa oo qiimaha hoos ayuu u socdaa balse waxaan rabnaa maadaama wax badan u soo dhacay laga soo bilaabo 3 May ilaa uu dhacay 9 May ku dhawaad 6 maalin way gudihiisa oo qiimaha hoos u socday waxaan rajaynaynaa hadda inuu kor aado the reason brokerada qaar haddii aad aragto waxaad arki doontaa hadduu aleedmo gaab macnaa gaabka waxaa weeyaan priceka farqi ayuu u dhexeeya marka waa meel bannaan sidaas darteed marka gaabkaas meesha bannaan waa inuu soo buuxiyaa priceka okay waa tusaale qof meel la oo kale ama wax ay ku dhaceen oo kale ama meel duleesho oo kale in la buuxiyo kab la saaro loo baahan sidaas darteed marka qiimaha uu isbedeli doonaa oo kor ayaa laga rabaa hal mar hoos ayuu aaday space ayuu sameeyay gaabka waxaa la rabaa marka spacekaas inuu soo xiro gaabka insha allah sidaas darteed gaabkan wuxuu ku dhow yahay ilaa 146 something sidaas darteed marka qiimahan down trade ayuu ku jira intana waa range market waa qiimaha range ayuu ku jiraa still ma cadda xitaa inuu hal mar kor aadi doono لكن سيدا ujeeda range ayuu ku jiraa sidaan oo calaamadeeyay waxaa la dhihi karaa bullish checkmate qiimaadu 143.50 oo ka baxo ilaa 50 oo ka dul baxo qiimaha kor ayuu aadi doonaa bullish checkmate ayaan la yiraahdaa okay like sida caadiya markii aan fiirino technicalka down trade ayuu ku jiray 1 here 2 here 3 here saddex jeer ayuu resistance ka dhigtay oo cuskada meesha sidaas darteed maadaama uu cuskaday qiimahana hadda aad ujeed oo ka baxay alxamdulillah waan ku jirnaa waxaan rajayn doonaa weegan inuu pound JPY ka soo baxo faa'iido aad iyo aad u ballaaran ilaa 300 ilaa 250 pips inuu ka soo baxo soo marka sidee buu sameyn karaa wuxuu sameyn karaa bullish checkmate kan ama range market kan meeshan waa inuu ka baxa intee buu uga baxayaa 143 content ayuu uga baxayaa haddii uga baxo 40 ilaa 50 pips markii uu dhaqaaqo qiimaha waa la soo yar celinayaa okay markii la soo yar celiyo ayuu wuxuu sameyn doonaa insha Allah one more pullback oo qiimaha ku tagi karo 145 okay 145 ayuu ku tagi doonaa 145 markuu uu ku dhawaado ayuu wuxuu sameyn doonaa inuu soo laabto qiimaha xoogaa hoos loo soo yara dejiyo then uu sameeyo another pullback okay 3 ilaa 4 jeer ayuu qiimaha pullback sameyn doonaa oo kor aadi doonaa insha Allah ta'ala pound JPY isagana faa'iidaas ay ku jirto hadduu qiimaha meelahan 142 ilaa 40 haddii aad ku aragto waa bay garanaysaa insha Allah ta'ala then muxuu qiimahan waxaad dhiganaysaa 50 ilaa 60 ilaa 100 pips ayaad stop loss dhigan doontaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu faa'iido uu keeno already aniga waan ku jirnaa 143 ilaa 142.80 dhexdiisa ayaa ka soo galnay waxaan rajayn doonaa weegan 200 ilaa 300 ilaa 150 pips inaan ka qabanno oo faa'iido oo sintiyaal ah sidoo kale waxaan rabnaa inaan fiirino New Zealand JPY 4 saac waa kana oo qiimaha wuxuu ku jiraa down trade ayuu ku jiraa haddana wuxuu sameynayaa wax yar oo uptrend ah ayuu qiimaha isku yara bedelayaa okay sidaad u jeedaanba waxa weeyaan qiimaha waa kana down trade ayuu ku jiray waan sawirayaa technicalka okay qiimaha sidaas ayuu ugu jiray down trade-ka so qiimaha hadda marka wuxuu diyaar u yahay one more resistance oo ku soo taabto 73 okay hal mar ayuu u baahan yahay inuu 73 u soo taabto kadib ayuu wuxuu sameyn doonaa inuu wax yar u soo dhaco okay qiimaha maadaama hoos uu u soo dhacay JPY dhan gaab ayuu ku fureen marka waxaa loo baahan yahay in qiimaha ay sameeyaan wax la yiraahdo gap spacekaas inay buuxiyaan gaabka okay waa bay green alxamdulillah 72.40 ayaan ka galnay
ما شاء الله هذنا I think 16 بيبس ayaan faa'iido ugu jirnaa waxaad aragtaa support kale saddex jeer inuu cuskaday qiimahana uu diyaar u yahay inuu hadda spacekii banaanaay oo wiigii hore uu firaaqeeyey in uu soo buuxiyo sidaas darteed marka marketku wuxuu diyaar u yahay wiigan lacagaha JPY kasoo horjeeda oo dhan inay buuxiyaan spaceka okay qiimaha mid ayaa samayn kartaa JPY waa gaab macquul oo uu ku furi karaa sidaas darteed haddii kalena si caadiyan oo ayuu marketka ku socon doonaa kadib ayuu wuxuu sameynayaa marka insha allah hadduu meesha mar kale soo taabto buy here 73.36 ilaa 73.50 areas buy gare stop loss kan waxaad ka dhiganaysaa meeshuu kasoo kacay markii hore hoostiisa wax yar 5 pips ilaa wax ku dhawaad meelahaas ah yes ilaa 5 pips meelahaas ayaad dhiganaysaa stop loss waana sugaysaa targetkaaga koowaad wuxuu noqon doonaa control point target 2 wuxuu noqon doonaa ilaa 120 meelahaas ayuu noqon doonaa insha Allah taala so waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah taala waxaa ka mid ah lacagta kale aan rabo inaan fiiriyo USD Swiss franc wiigii hadda lasoo dhaafay alxamdulillah Friday waxaan ka qabanay 45 pips ما شاء الله هي 101 لقطة لبعض ودعاية إلى هي كده مركا هاد واحد وجد إنه كجرو still left كيسا bearish checkmate عم بروح لجاي اللي range market still مركا هاد وحاول من ما دام lower نقول area ده واللي بنا أصلا كسوس بحماشة support كان أسكان هاي أفرت الساعات دي أدركتو لبعض كندل أو منه وجاي traditional doji من هاد ولي أساسا اسمه أو سوق لو حيري waxay cadeynaysaa in qiimaha xoogaha kor loo yar celin doono okay kor ayaa loo yar celin doonaa balse ma gaari doono ilaa meeshaan 1.0224 ma gaari doono waxaa suurtagal inuu gaaro 1.0150 ilaa ku dhawaad 1.0140 inuu gaaro ayaa macquul ah then sell here muxuu ahay soo sell garay insha allahu tacaala markuu cadeeyo qiimaha wax yar ayuu kor u noqon doonaa qaybta sare ku sug إن شاء الله تعالى أنت كسر جبينية مراجعة السوق ويجن سوق صعوبة وتاريخ ده يكون بيجن تاعي صدق طبعاً إلى يو تدوبي طبعاً إلى تدوبي طبعاً أي رجينا فرايداي إن شاء الله تعالى إن قيمها سبدل في عن يكون سميان إن شاء الله تعالى سيزدت المركة هدي أتكيش فيديو لايك صار هدي أدم كهيلنا suuqa hoos u riix si aan ogaano baahidiina waxaa kaloo idinka codsaynaa inaad sii share gareysaan videoga channelkiina subscribe waadna ku mahadsantahay daawashada videoga waaniga ah Xarbaawi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye see you next time